jimco wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay qodobada aad daawo doontaan waxa kamida xog laga helay dawladda federaalka Soomaaliya oo hubaynaysa jamhadaha hubaysan ee ku sugan deegaanada ka tirsan gobolka Awdal iyadoo ka faa'iideysanaysa tabashooyinka ay qabaan beelaha gobolka Awdal dega waxaan la wadaagi doonaa xog sirdoon oo ay shaaca ka qaadeen saraakiil ka tirsan hay'adda sirdoonka Soomaaliya kuwaas oo sheegay in dawladda Soomaaliya ay hubkii ugu badnaa gudaha u gelisay deegaanada ka tirsan gobolka Awdal si qalqal amni loo geliyo Somaliland hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Silaax Axmedoobe oo diyaarsaday boqolaal askari oo ka tirsan ciidanka gaarka ah Jubbaland kuwaas oo ku heli doona safarka uu ku imaanayo magaalada Muqdisho kadib shaki xoogan oo ka qaba dawladda uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xilli arrintan fila Soomaaliya ay walaac xoogan ka muujisay dawladda federaalka Soomaaliya oo hawadeeda ka xanibtay in ay isticmaalaan diyaaradaha Israa'iil xilli uu soo baxay tuun xoogan oo la xiriira in wufuud culus oo ka socda Tel Aviv ay soo gaari karaan magaalada Hargeysa qodobadaas oo faahfaahinaya saaxiibayaal ku daawo doonteen barnaamijkeena jimcanimo balse daawadi haddii aad ku cusub tahay kanaalkan subscribe dheh sidoo kalena muuqaalkan like dheh kana mid noqo saaxiibada halkan ku xiran si aad u heshid xogihii ugu dambeeyay oo halkan aan ku soo gudbino aynu ku bilownay sirdoonka Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay shaaca ka qaaday in la hubeynayo ciidamadii ugu badnaa oo ku sugan deegaanada ka tirsan gobolka Awdal si ay qalqal amni u galiyaan Somaliland ila wareedyo dhanka sirdoonka ayaa sheegaya in dawladda federaalka Soomaaliya ay damacsan tahay talaabooyin argoosi ah oo karana aqoonsiga ay ka heshay Somaliland Israa'iil kaasi oo ah in la taageero maleeshiya beeledyada hubaysan ee ku sugan deegaanada ka tirsan gobolka Awdal sida ay xaqiijiyeen ila sirdoon laba sargaal oo ka tirsan hay'adda nabadgudda sirdoonka qaranka ee Soomaaliya ee NISA ayaa u sheegay shabakada Daroob Said in xukuumadda Muqdisho ay qorsheynayso inay hubayso isla markaana ay ka faa'iideysato tabashooyinka ay qabaan beelaha deegaanka gobolka Awdal si qalqal amni loo geliyo maamulka Somaliland wararku waxay intaasi ku sii darayaan in qorshahan uu jawaab u yahay go'aankii ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo 26 December ee sanadkii inuu wadaartay ku aqoonsaday Somaliland kaasi oo sheegay in Somaliland ay tahay dal madax bannaan talaabadaas oo dawladda Soomaaliya ay si weyn u carootay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tilmaamay xadgudub sharci darro ah oo kanana qarannimada Soomaaliya isagoona markaasi ku hanjabay in dawladda Soomaaliya ay qaadi doonto talaabooyin diblomaasiyadeed iyo kuwa military oo gudaha kuwaas oo guud ahaanba loo tirtirayo dalka nidaamka gooni-goosadka iyo qorshaha Israa'iil sida ay xaqiijinayaan xogaha sirdoonka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa doonaysa inay awood siiso beelaha deegaanka gobolka istiraatiijiga ee Awdal oo ku yaala afafka hore ee badda cas kuwaas oo muddo dheer diidanaa nidaamka gooni-goosadka ee Somaliland haddana ay ku sugan yihiin jamhado hubaysan kuwaas oo ay suuragal tahay in dhinacyadu ay ka faa'iideystaan beelaha gobolka Awdal waa dubdhexaadka fashilinta qorshaha Israa'iil ee Somaliland gobolka Awdal waxa uu dul saaran yahay marinka muhiimka ah ee Baabul Mandab ayuu yiri sargaal ka tirsan hay'adda NISA oo magaciisa qariyay waxaana intaasi raaciyay in waxa kaliya ay u baahan yihiin ay tahay taageero siyaasadeed iyo mid hub dawladda Soomaaliya ay diyaar u tahay si loo qalqalgeliyo ammaanka Somaliland xiisada gobolka Awdal ayaa durbo muuqatay inay sii kacayso 21 bishii Janaayo ciidanka militariga Somaliland ayaa dagaal adag la galay mid kamid ah beelaha hubaysan kuwaas oo ku sugan deegaano hoosaga degmada Saylac ee gobolka Sanaag halkaas oo Somaliland ay sheegtay inay ku dishay 2 nin iyadoona intaasi wixii ka dambeeyay xiisada gobolka ay cirka isku shareertay waxaana xigay in xildhibaano ka tirsan dawladda Soomaaliya ay ku dhawaaqeen maamul la magac baxay Guman State kaas oo si toos ah markaasi ula loolamaya maamulka Hargeysa tani wixii ka dambeeyay dagaalka ciidanka Somaliland iyo beelaha Ciise xaaladda gobolka Awdal ma ahayn mid degan waxaana la soo warinayay in jamhadii ugu badnaa hubaysan ay ka soo gudbayaan dhinaca dawladda Djibouti iyo Ethiopia oo qorshahan kaalin weyn ka ciyaaraya iyadoona ciidamadii ugu badnaa loo soo galiyay deegaanada ka tirsan gobolka Awdal waxaana markaasi la sheegayaa in qorshahani ay taageerayaan dawladda shisheeye kuwaas oo dhaqaale weyn ku bixinaya halka dawladda Djibouti iyo Soomaaliya ay yihiin fuliyaasha qorshahan si loo fashiliyo nidaamka gooni-goosadka Somaliland waxay wararku sheegayaan in laba qorsho oo waaweyn lala damacsan yahay gobolka Awdal qorshaha koobaad ayaa in dawladda Soomaaliya ay hubayso jamhadaha hubaysan ee u dhashay beelaha Ciise iyo Galbeedsi ee ku sugan deegaanada ka tirsan gobolka Awdal kuwaas oo hayso hub fara badan waxaase qorshuhu yahay in la kordhiyo hubkooda lana bedelo aragtidooda oo hadda ayagu ay isdagaalayaan iyadoo lagu jeedin doono dhinaca Somaliland si gobolkaasi looga soo Somaliland
saraakiil sirdoon ayaa sidoo kale xaqiijiyay in qorshahaasi hadduu fashilmo ay dowladda Soomaaliya iyo Jabuuti iska kaashan doonaan ciidamo ka tirsan kuwa dowladda iyo kuwa Jabuuti oo isku dhafa oo ka soo galaya dhinaca xuduudda markaasi gobolka Saleed ee dhinaca Jabuuti kuwaas oo si toos ah ula wareegi doona deegaano ka tirsan gobolka Awdal si ay Soomaaliland halkaasi uga saaraan. dhawaan mas'uul sare oo ka tirsan dowladda Jabuuti ayaa ku hanjabay in markaasi ay la wareegi doonaan gobolka Awdal waxa uu markaasi sheegay in ciidanka Soomaaliland iyo sidoo kale kuwa Jabuuti ay isku arki doonaan magaalada Sela. mas'uulkan oo qoraal ku qoray Bartis X waxa uu markaasi sheegay hadal u dhignaa Soomaaliland waxa isku arki doonaa Sela labadanada mid ay awood badnaan doonta taasi oo u muuqatay hanjabaad toos ah oo markaasi ka dhan ah maamulka Hargeysa. qorshahan ayaa durba bilowday sida ila wareey soo warinayaan waxaana gobolkan hadda ka taagan dagaal qaraar oo u dhaxeeya beelaha Ciise iyo Gadabuursi iyadoona ay ku sugan yihiin jabhado hubeysan. Soomaaliland ma qarsan walaaceeda ku aadan inuu gobolkani gacanteeda ka baxo waxaana soo taray markasta wararka dhiilada ee ka dhanka Soomaaliland ee ka soo yareeya gobolkaasi. وهاك داود يلقى بكل حساسية أيها إنه صوص عظم بل صداود هديات كعصوب تاي مقال كان لك كانال كان نسوس قريب له كان من نقص صاحب هذا هل كان كحران سياده ويشد حقيقي ورك قدام بيه وهل كان أنسي جوكته وسوق منه هديات هرنا ولا جوكتنا كل سنة داود اللي جاقات ورك يبرمشد هل كان أنكسو قد منه hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Silaax Madoobe ayay xuquuq sheegayaan inuu diyaarsaday boqolaal askari oo ka tirsan ciidamada gaarka ah ee madaxtooyada Jubbaland kuwaas oo la sheegay inay ku heli doonaan safarka uu ku imaanayo magaalada Muqdisho. Axmed Madoobe ayaa qorshuhu yahay inuu soo gaaro magaalada Muqdisho horaanta bisha February oo ay ka harsan tahay wax ka yar saacado waxaana markaasi xuquuq ay tibaaxayaan in Axmed Madoobe uu garoonka Muqdisho kala soo degi doono boqolaal askari oo ka tirsan ciidanka Jubbaland. sababta ayaa lagu sheegay in hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Silaax Madoobe iyo Deniba ay cabsi xoogan ka qabaan aaminaadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyagoona ciidamadani doonaya inay isku waardiyaan. Axmed Madoobe ayaa la soo warinayaa in ciidamadan uu diyaarsaday sidii ay u sugi lahaayeen ammaankiisa iyadoona markaasi uu cabsi xoogan ka qaba in fila Soomaaliya ay qorshayaal halis u maleegto maadaama uu 2 sano soo maray dagaal qaraar oo u dhaxeeyay labada dhinac kaasi oo sababay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac halka dowladda Soomaaliyana ay markaasi waara soo qabasho u jartay hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Silaax Madoobe iyadoona ugu dambeyn ka laabatay shalayto. hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Silaax Madoobe iyo sidoo kale madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa la soo warinayaa in ay iska diideen in ay galaan xarunta fila Soomaaliya isla markaana shirka loo balansan yahay 1 February uu ka dhaco markaasi xarunta fila Soomaaliya waxayna markaasi dalbadeen in uu markaasi shirkaasi ka dhaco xerada Xalane oo ay ku sugan yihiin xubnaha qaramada midoobay isla markaana aysan maamulin dowladda Soomaaliya. waxay markaasi xuquuq sheegayaan inay cabsi xoogan ka qabaan markaasi ficilo halis ku ay u maleegto dowladda Soomaaliya maadaama uu khilaaf adeeg kala dhaxeeyo fila Soomaaliya wax kastana ay ka suurtoobaan waxaana markaasi la sheegay in shirkoodu uu ka dhici doono xerada Xalane iyadoona sidoo kale ay goobjoog ka noqon doonaan xubnaha beesha caalamka ee ku sugan xerada Xalane oo ugu horeeyo u qaabilsanaha wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Wan. si kastaba haatee waxaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ka socday saacadii la soo dhaafay shirar ballaaran oo hordhac u ah kulamada la filayo inay dhex maraan Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale mucaaradka waxaana laga cabsi qabaa in shirarka lagu kala tago maadaama fila Soomaaliya aysan ka muuqan wax tanaasula oo ku aadan markaasi dhinacyada doorashooyinka iyo sidoo kale wax ka beddelka dastuurka oo ay dowladdu ku adkaysanayso. ugu dambeyntiina dowladda federaalka Soomaaliya ayaa guud ahaan mamnuucday in shirkadda diyaaradaha Israel Airkio lagu magacaabo ay isticmaasho hawada dalka Soomaaliya talaabadaas oo Israel markii ugu horeysay ay ku tilmaamtay jawaabtii ugu horeysay ee Argosia ee diblomaasiyadeed tan iyo markii Tel Aviv ay aqoonsatay Somaliland. go'aankan ayaa ku qasbaya shirkadaha Israel ee sida joogtada duulimaadka uga sameeya dhinacaas iyo Thailand in ay markaasi mari doonaan wadooyinka dheer ku hore taas oo kordhinaysa waqtiga qarashaadka iyo sidoo kale shidaalka. sida uu qoray wargeyska ka soo baxa Israel ee lagu magacaabo Yediot Ahronot waxa uu markaasi sheegay in shirkadda diyaaradaha Israel Airkia aysan helin markaasi cusboonaysiinta ogolaanshaha maritaanka hawada ee bisha Febraayo hawada Soomaaliyana ay ahayd marin habowlo ah diyaaradaha Israel ee u kala goosha koonfur bari ilaa Aasiya iyo sidoo kale Tel Aviv. waxa uu sheegay haddii aanay helin ogolaanshaha bisha February in shirkaddu ay ku shaqayn doonto wadooyin kale kuwaas oo markaasi ku sii badan doono qarashaadka iyo safar dheer oo ay u maraan markay u socdaan koonfur bari ee Aasiya.
tallaabadan ayuu wargeysku ku tilmaamay tii ugu horeysay ee Argosya oo ay qaado dowladda federaalka Soomaaliya tan iyo markii Israa'iil ay aqoonsatay Somaliland waxaana hawada Soomaaliya ay tahay meel istiraatiiji ah oo inta badan dalalka caalamku ay ku kala safraan si joogtaan ay u maraan duulimaadyo ay sameeyaan diyaarado kala duwan oo laga leeyahay caalamka taas oo Israa'iil ku noqon karta halis xooggan maadaama aysan diyaaradaheedu isticmaali karin hawada Soomaaliya iyadoo Israa'iil xadgudub toos ah ay ku sameysay hawada Soomaaliya oo dhawaan safar qarsoodi ah uu ku soo galay diyaaradda raadaarka dansatay oo uu markaasi la socday wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil Gideon Saar arrintaas oo si weyn ay ugu carootay dowladda Soomaaliya gudaha daawadayaashaas waxa ku wararka aad kala socoteen kanaalka wararka Xogaya TV fadlan haddii halkan nala soo gaartay ku soo biir kanaalka muuqaalkana la geli kana mid noqo saaxiibada halkan ku xiran si aad u heshid xogaha iyo wararka halkan aan ku soo gudbino gambaleelka furo oo hel xogaha iyo wararka aan halkan ku soo gudbino